الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. كوجو رئيس عن جعله هاي ذلك لنا كسلامه مشير سومالان وكان حسب الكلية الحين تمرين سومالان ده هذا القرن يشعب اليو يبهذا الميديا كل ما تشعلين إن شير شهادة قطو هذا أنا خسرتي قف مرح وجالي هاي wax badanna aad xog u hayso marka aragto hay'aanki guud Soomaaliland oo ugu sameeyay farshaxan bal bedelayo wax ku khasbanaaday inaan xogaa yar oo binixiyo aan rajaynayaa shirkan inaan u noqon doonin shirkii ugu horeeyay ka hadlo waxa jira daraasado la sameeyay iyo xogo badan oo aan hayno haddana ahaan jiray dawladda amniga sababta xafiiskaygu wuxuu ahaa xafiiska ugu xogta badan leh ee Soomaaliland waxaan jeclahay inaan halkaan kaga hadlo dhowr qodob waxa weeyaan wuxuu noqon doonaa inaan iftiimiyo Soomaaliland political crisis kan ay gashay waxyaabo sababa qodobna waxaan jeclahay inaan kaga hadlo xeerka xisbiga iyo xeer number 14 iyo waxyaabo ka qabo oo shalay aad moodo niman xubno golaha wasiirada ka tirsan inay ka hadleen qodobka ugu dambeeyay waxaan jeclahay inaan tiro soo jeediyo shacabweynaha Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hoggaanka xisbiga kulmiye haddaan ku horeeyo Soomaaliland sida ogtiinay waxay gashay xaalad loola karo waa political crisis bay gashay sababna waxa uu ah sidaan rajaynayo sawir aan idin muuqanin bulshada Soomaaliland waxa sabab u ah group ka tirsan xukuumaddan madaxweynuhu hogaamiyo groupkaasi waa group caana waxdeed amnigu ama qolada amnigu waxaan u naqaanay guntigaaban uran jirnay markaan ku jirnay siyaasadda waxaasi magacyo badan bay isticmaashaa horta ruudkooda koobaad waa ikhwaan muslimiin magacyadu way bedbedelaan mar waxay u bedelaan waxay yiraahdaan waxay la baxaan nahda mar waxay la baxaan ittihaad روح لا بحان إصلاح روح لا بحان اعتصام روح لا بحان دم جديد برنا روح لا بحان الشباب مقعد أسماء مقعد لما تذكر رأيهم وإخوان المسلمين إن سببها يدونان إن يمرك يدون يطلعنا يقصدنا واحد ذلك كابورا وحلو يقانون political crisis سيدا العضي وضم بدن أي كم يتيجي جيبوتي وتحقق كتيين دول جديد جدا بيسي يخرجوا أحيانا وتحقق كتيين تونس كدعي والحقالو تي هن الجيريا كدعي سقاشناتكي ديالك كدن بيين والحقالو تي وحي كدعي مصر والحقالو تي وحي كدعي سوريا والحقالو تي مانتا wax Soomaaliya ay la digi leedahay waxa weeyaan waa asbaab noocaas amagaasi diinta isku qurxiyaan oo sawir diinad bisla laakiin afkaartoodu waa afkaar siyaasiya laba sababoodna way weeraraynta badan waxay dadaalaan inay hantida dalka gacanta ku dhigaan waxa kale awood saaran powerka inay gacanta ku dhigaan maanta waxay moodaa Soomaaliland xaalad ay doonayaan inay gacanta ugu dhigaan inay marayaan waxaan jecelahay inaanay jirin aanu cadeeyo Soomaaliland inaanay jirin gudoomiye iyo madaxweyne saaya iyo xisbi saaya laakiin waxa sabab u ah inuu khilaafku intuu halka gaaro waxa weeye groupkaas waxaan jecelahay waxa kale oo imka ay aad uga howlan yihiin inay abuuraan wax loo yaqaano gudida culimada Soomaaliland siyaasadda ka dambeysana waxa weeye in qof kastoo siyaasi ah oo muslim qoyr socda sida hadhow toole dadka loogu kicin lahaa oo gudidaas noqon lahayd gudi awood badan oo qof kasta iyagu ay sameeyaan fiidiyooyin ay qofna kaga saaraan systemka qofna ay ku soo geliyaan waxaad maanta xogaal ka tihiin in ay aad ay uga qeyliyeen ururada waxaan oran karaa diimeedkeena hore sida ahlusunna wal jamaa waxa kale oo xogaal u tihiin in maanta Hargeysa ay jiraan masaajido la isku haysto oo maxkamadaha ku jira sababna waxa uu ah nimanka ay sheegayo hadoon inay doominad gareeyaan dhammaan masaajidada oo isticmaalaan media marka waxaan jecelahay shacabweynaha iyo inta af Soomaaliya ku hadashaba inaad u fahantaan inaanay maanta jirin khilaaf siyaasi ah oo ka dhex jira dawladda Soomaaliya dadka Soomaaliland laakiin jimciyadaha noocaasi inay siyaasadda Soomaaliland ay aad ugu jiraan imka aad wax u taageer gareeyaan si loo tirtiri lahaa ahlusunna wal jamaa iyo urka la yiraahdo salaful saalix taas waa qodobka koowaad aan jecelahay inaan idin iftiimiyo
waxaan jecelahay oo kale inaan diin iftiimiyo qodobka labaad waxa weeyaan waxa weeyaan shalay waxaan maqlaynay ma odhan karaan waa golo dhexe guddi fulineed fulintii dowladda 19 xubnood iyo 4 xubnood oo suuqa lagaga soo daray waxaan jecelahay inaan idin yar iftiimiyo xeerka xisbiga qodobkiisa 15aad wuxuu ka hadlayaa qaab dhismeedka xisbiga uu ka kooban yahay xisbigu ka kooban yahay shirguddoonka iyo 4 gudoomiye ku-xigeen ogayaha guud iyo xubnaha golaha dhexe wuxuu sheegayaa isla qodobkaasi farqadiisa labaad in golaha dhexe ay ansixin doonaan guddiga fulinta taa macnaheedu waxa weeye markuu gudoomiyuhu soo magacaabo ay guddidii dhexe ay ansixin doontaa guddiga fulinta laakiin qaab dhismeedka xisbiga saad ku arki doontaan farqadiisa ba qodobka 15aad intaas ugu kooban yahay waxaan jecelahay taas waa qodobka labaad aan jecelahay waxaa jiray awoodo u sheegteen guddidii shibinaha awoodahooga waxaa sheegaya qodobka 19aad ee isla xeerka wuxuu sheegayaa shirweynuhu wuxuu leeyahay awoodahan soo socda wax ka bedelka iyo ansixinta dastuurka xisbiga wax ka bedelka iyo ansixinta barnaamijka xisbiga doorashada xubnahan kooban waa gudoomiyaha 4 gudoomiye ku-xigeen iyo xogeyaha meel allaala meel ka sheegay in guddi fulineed uu magacaabaya ma jirto qodobkaas xarafka xa wuxuu sheegay doorashada xubnaha golaha dhexe ee xisbiga marka ma muuqato meel allaala meel ay awood ugu leeyihiin shirweynaha xisbigu inuu magacaabo guddi fulineed waana rayacaam khaldan oo dadka la doonaya in lagu jahwareeriyo isla qodobka 20aad wuxuu sheegayaa shirguddoonka iyo xilka iyo waajibaadku leeyahay waxaan jecelahay waad akhriyi kartaan meel allaala meel ku sheegaya ma jirto qodobka 21aad wuxuu sheegaya xilka iyo waajibaadka gudoomiyaha isna kuma cadda meel allaala meel ku sheegaya waxaan jecelahay qodobka 24aad xarafkiisa da ayaa wuxuu sheegayaa awoodda gudoomiyaha xisbiga kulmiye inuu awood u leeyahay inuu magacaabo guddiga fulinta sidoo kale xeer number 14 qodobkiisa 13aad ayaa isna wuxuu awood u siinayaa inuu gudoomiyaha xisbiga uu awood u leeyahay inuu magacaabo guddiga fulinta taas waxa weeyaan waa intii xeerka sababtoo ah waxaad moodaa hadday beentu fara badato rayacaamku way lumisaa waxaan jecelahay shalay qoladii hadlaysay anuma odhan karo de waa guddi fulineed waa xubno la soo diray golaha wasiirada ka tirsanay iyagu oo welibana waa inta aan isleeyahay waa xubnuhu dadku ay noo kala suntanay marka shirka golaha ku jirnay ragna waxa ay rag la diro ragna waxa ay raggan idin sheegayay awoodda meesha ku leh marka raggaa la soo diray ma jeceli inay waxay yidhahdeen meel allaale maan ku aragno ma hayne waxaan doonay anaga idin faahfaahinaya waad ka eegi doontaan insha allahu halkan taas waa qodob labaad waxaan jecelahay xubno ka tirsan guddidaas waxay yidhahdeen salka iyo khilaafka xisbiga wuxuu ku urdaa musharaxnimada xisbiga gudoomiyaha xisbiga waxaan jecelahay qodobkaan inaan laba qodob ka idhahdo horta waxa ugu dastuuriya qofku inuu sharaxo iyo in la doortaa waxa ugu dastuuriya dastuurkeena qaranka qodobka 22aad farqadiisa koobaad ee qofka muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu galo howlaha siyaasadeed dhaqaale bulsho iyo hidde si waafaqsan xeerka iyo dastuurka qaranka sidoo kale farqadiisa labaad waxay leedahay muwaadin kasta oo buuxiya shuruudaha xeerka tilmaamaya wuxuu xaq u leeyahay in la doorto waxana doorto si awadeed ima muuqato hadduu qof yidhaahdo waxaad kuu muuqata inaanu jirin caqliyad saliima laakiin qofka marka la yidhahdo waxaa dheh inuu odhanayo ninkaasi wuxuu ku hor yimid xaqii dastuuriga ahayd qof inuu xaq u leeyahay inuu waxna doorto lana doorto sidoo kale xeer 14 oo inta badan ay siteen ilaa xalan ku arkaynay qodobkiisa 11aad wuxuu leeyahay musharaxiinta markuu ka hadlay musharaxiinta qof kasta muwaadina wuxuu xaq u leeyahay waa isla xeer 14 wuxuu xaq u leeyahay in la doorto waxna doorto si awadeed anugu ma arko sabab ama madaxweynaha ha noqdo ama gudoomiyaha xisbiga ha noqdee sabab qof loogu diidi karo inuu wax doorto lana doorto taas waxay noo cadaynaysaa inay nimankani doonayaan inay dalkan geliyaan political crisis sidii masalo kale in la isku dilo dadku isku hor yimaadaan ka bacdina siyaasadooda halka ugu fusho laakiin waxaan leeyahay waxaa jirta daraasado ay ka sameeyeen hay'adaha caalamiga bisho mar baan jeclahay inaan siiyo
qaabismoodkooga dhaqaalahooga taladooda iyo guddoonkooda maanta Hargeysa waxa jooga ragiis ka sharaxay xamar ee guddoomiyaha soo sharaxay ee ku guul daraystay maanta Hargeysa la joogay waana nasiib darro maanta inay shiraahdaan waa muuqataan Soomaalida waxay tiraahdaa ninka dhuumaray dhabarku muuqdo waxa kaloon leeyahay taas waa qodobada aan jecelahay inaan iftiimiyo marka la leeyahay guddoomiyaha iyo madaxweynaha ayaa khilaaf ka jira shalay waa labadii nin la wada dooranayay aqaliyada maanta oranaysa labadii nin shalay la wada dooranayay ayaan maanta haddana khilaaf ka dhex abuurayna waxaan garanayaa qof kasto aqli saliim leh waa garan karaa waxa looga damacsan yahay dalkana waxaan jecelahay inaan tala soo jeedinteedana aan jecelahay inaan u soo jeediyo imaga waxaan u gudbayaa tala soo jeedinteedii mid wax weeyaan waxaan doonayaa inaan soo jeediyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland tiiban ku horeynay madaxweynaha waxaan jecelahay madaxweynuhu waa nin xurmo inaga mudan runtii inta uu shaqeynayna waa nin akhlaaq badan nin dib badan maaha waa nin dibta nacab waxaan aaminsanahay 2 sanadood uu dalkan soo halgamay maantana uu shaqeynaya 2009 maraan kaliis ku ahayn maalin aan ku yiri waxaan u taaganahay inaad 5 sanadood hadduu Allah igu simo inaan magac kaga tago magacayna kaga tago 5 sanadood Allah igu simo maantana wuu taaganahay madaxweynaha waxaan leeyahay Soomaalidana waxay tiraahdaa cimrigaaga ceeb laguma sugotiyo walaadankuna wuxuu manaafacsado waxa uu weyn taariikh taariikhda waxa laga yaabaa inuu ilmaha u dhaxlo inuu kaad ugu tahay dhaxlo inaad adigu dhaxasho haddii alla kugu simo waxaan jecelahay sidii ninkii Aadan Cabdullaahi Cusmaan inaan taariikhda iska xumaynin maanta sharaf iyo qiimo ku leedahay Soomaaliland haddaad doonayso inaad asleedahay awood baad u leedahay inaad tartanto waxaan jecelahay horta gruupka aan jecelahay iyagu maslaxada Soomaaliland لما كورونا ويلاتو ساعة عدل فرنا هنا تلاذا مقاضته لكن ما كل تاريخ هذا إن حكو مسيحين سياسة كل عن وجروب وهو صار من هاي وطن من نوع الله هاي إن شعبوينها سومالان أنا أركن دوني أنا كعبيو سوي ما تسكور كانان دو كلار بيشان خيرها سكور كانان إبراهيم مدين خيره أنا وحبه يسوى هاي ولا لا dal iyo dhasheeda oo dhiig iyo dhaqan ka dhaxeeyo oo xidhiidhnimo ka dhaxaysan maanta doonayna inay khilaaf ka dhaxawuraan waxa shacabweynaha u soo jeedinaya inaan jirin reer ku duulaan ku ah iyo reer wax u diidan laakiin wax bayn wada leenahay waxaan wada leenahay inaan yeelashano waxaan idinka digayaa siyaasaddaasi waxa ay geysin kartaa Soomaaliland inay Hargeysa noqoto Muqdisho kale balbara noqoto marka oo kale burca noqoto baydhabo oo kale ergaabana noqoto kismaayo oo kale ilaahay baynu leenahay rajayna maayo gruubkaas inay ku guuleysan doonaan afkaartooda ku raacan waxaan jecelahay inaad qabri furan yeelataan ubadkiina iyo ayihiina aad ka tashataan midna waxaan leeyahay qolada aan u sheegayo qoladeeda amnigu naqaan gunti gaabta Soomaalidu waxay tiraahdaa laaca aragtay leega ma ogtahay maanta beesha caalamka iyo dawladda ay la jaarkayba si fiican bay uga warhayeen siyaasadda Soomaaliland siyaasadda xumadiinaas waxay geysisay dawladda kaliya ahayd in la jaarka ahayd ee fiisayna aqbali jirtay ee dalkeenu ku gali jiray biisa baasaboorka Soomaaliland in loo diiday 18 May inaan laga xusin umalayn maayo wadada ka furan damciina halagada waxaan jecelahay inay qaab bilaadan iyo bismillaah kariim bulshadana maalin iska qaban doonto midna waxaan leeyahay hoggaanka xisbiga kulmiye waxaan jecelahay inay ku dhiiradaan wixii dastuurka iyo xeerarka dalka ay u ogol yihiin kana fogaadaan wixii ummadda fowdo iyo sawirkan ka horkeenaya waana mahadsantihiin billahi tawfiiq assalaamu calaykum warahmatullahi taala wabarakaatuh Star TV baan soo waxaad sheegtay markii dalka inay joogaan niman mas'uuliyiinaha wadaaga maxamed guddoomiye bikor wasiirka haweenka amniga maanta inta arrinka noocaas iftiiminayso shalay maxaa lagu qabanaya maadaama wasiirka amniga hay'adda labaad waxa ku weydiin lahaa waxaad sheegtay nimanka guddiga fulinta shalay tabashirka jiraan inay ku jiraan
qola la diro iyo qola awoodda kula gaasho adiga markaad wasiirka kuwa la diraad ahayd si kuwa awoodda kula gaasho waayo waad mahadsan tahay inaad waxaa jecla marka hore inaan su-aasha ka jawaabo horta waxaan doonaya idiin sheego waxaan ahaa anugu habeen ka tirsan golaha la yidhaahdo golaha la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeeda ee gacanka carmeed waxaan ka qayb galay shirkii lagu qabtay Sanca iyo shirkii lagu qabtay Djibouti waxaan isku daynay inaanu la wadaagno wadamada Soomaaliya la jaarka sidii loola dagaalami lahaa waxaad xogagaal ka tahay anigoo qura maahe 5 jeer amba 6 jeer hore in madaxweynaha laga hadlay sidii nimanka wax looga qaban lahaa annagu haddaan nahay albaan ku ahayn aragtidan iyada waxay gaadhay shirka golaha wasiirada inaan laba soo hadal qaadi karin al-shabaab oo la isku qabsado laakiin marnaba nagama joojin jirin inaan ka hadalno kana doonno arrinka isaga tan kale haddaan ahay qof la dirayo sababta xilkan uga tegay ayaa ku sheegaysaa in la diri jiray inaan haqo xora